Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal meel kasta oo adduunka ka joogtaan Ramadaan Kariim. Abboolimo media aad ugu barateen halkan inuu idinka soo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida kuwooda ugu waaweyn. Maalinimo Arbaca weeyaan, taariikhdu tahay 29 bisha Afraad 2020. Waxaan warkeena ku bilaabaynaa Soomaaliya oo kusii kordhay cudurka COVID-19. Wasiiradda caafimaadka ee dowladda federaalk ayaa sheegtay in tiradu ay gaarayso 520 halka ay dhimashaduna gaarayso 28 ruux ay tiri, iyadoo xaaladda dalkan uu kasii darayo maalinba maalinta ka dambeysa ayay tiri Mari qabata shir jaraa'id. Ra-iisul wasaarihii Britain Boris Johnson oo dib shaqadii ugu soo laabtay ayaa waxa uu uga digay shacabka Britain inay ka taxadiraan oo inaan labanlaaban dadaalkooda ay ugu jiraan la dagaalanka COVID-19. Waxaana uu yiri waa inaan u diyaargarownaa mowjadda labaad ee COVID-19 ee nagu soo wajahan. Waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal hogaamiyihii Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo xaaladiisa caafimaad warbaahintu maalmahanba ay hadlaysay ayaa ilaa haddeer waxaan lahayn war saxan oo kasoo baxa. Kim oo dhashay taariikhdu markay ahayd January 8, ayaa waxa uu noqday hogaamiyaha dalkaasi 2011 isaga oo dhaxlay aabihii. Kadib dhimashadii 2010 ayaa waxaa Kim Jong Un loogu yeeray magacyada ahaa inuu yahay gudoomiyaha golaha dhexe ee militariga iyo gudoomiyaha guddiga ammaanka gobolka, iyo isagoo ahaa madaxweynaha dalkaasi, iyo isagoo weliba loogu yeeray magaca Marshal oo u bixiyeen golaha kacaanka oo ah micnihiisuna yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. Haddaba Kim Jong Un oo taariikhdu markay ahayd Kim Jong Un tan iyo markuu dalkaasi hayay safarkii ugu horreeyay ee bishii Maarso 2018 uu dalka dibadiisa uga baxay, waxa uu ku tegay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha caasimadiisa, isagoo booqasho halkaasi ugu tegay madaxweynaha dalka xukuma. Haddaba waxaa sawir uu satellite ku qabtay ay sheegayaan in jasiiradda yar ee Kim Jong Un isagu mulkida u leeyahay lagu arkay qasrigiisa tareen hortaagan, kaasoo loo maleynayo in uu raacay tareenkaas amaba lagu qaaday kadib markii khubaro Chinese oo dhinaca caafimaadka ay dowladda China usoo dirtay. Haddaba hogaamiyahan ayaa waxa uu gobolka kusoo kordhiyay xiisad kadib markii uu sameeyay gantaalaha riddada dheer ayaa waxa uu sameeyay gantaalaha madaxyadooda loo yaqaan kuwa nuclear-ka xambaara ayuu waxa uu kala sameeyay sanadihii isku xigay 2016 iyo 2013 tijaabooyin kuwaasoo reer galbeedku aad uga caroodeen. Hase ahaatee waxa uu markay sanadu ahayd 2018 bishii Abriil waxa ay madaxweynaha dalka Mareykanka ku wada kulmeen dalka Singapore, iyaga oo la sheegay inuu heshiiskaasi soo dhaweyn uu ka dhex dhaliyay labada dal oo ahaa kuwa ugu xiisaha badan xagga colaadda ee dunida marka la eego tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Waxaa haddaba daawadayaal aan wararkeena idinku haynaa oo kale Hong Kong waxaa weli iyadana ka soconaya dibadbaxyo ay sameynayaan dhalinyaro ka careysan bandowga lagu soo rogay, iyaga oo si toos ah ay isku dhacyo isdaba joog ah isaga hor imanayaan iyaga iyo booliska dalkaasi China. Daawadayaal waxaanu kaloo warkeena idinku haynaa dowladda dalka Yemen ayaa waxa ay soo wajahday caqabado fara badan kadib markii mucaaradkii uu hubeeyay dalka Sacuudi Carabiya ee damceen inay goostaan koonfurta. Hase ahaatee dowladda Sacuudi Carabiga iyo asxaabta ay horkacayso ayaa waxa ay diideen amaba ay gacanta ku sayreen goosashada ay ku dhawaaqeen Yementa koonfureed, iyagoo Sacuudiga meesha marnaba ka saaray inaanay Yemen laba dal noqon karin. Hase ahaatee dalalka la xulafada ee dagaalka kula jira dalka Sacuudiga oo ka mid yahay sida dalka Imaaraadka oo kale ayaa waxa uu la sheegayaa inuu isagu arrintaani ka dambeeyay inuu Yemen u qaybiyo labo. Waxaa daawadayaal kale warkeena idinku haynaa Lubnaan ayaa waxaa ka socda dibadbaxyo aad u xoogan iyada oo dhalinyaro careysani oo ay ka mudaharaadayaan bandowga saaran iyo maciishad xumo iyo dhaqaalihii dalkaas oo burbura ayaa waxa ay isugu soo baxeen caasimadda dalkaasi ee Beirut, iyaga oo geystay khasaarooyin badan oo gubay gawaari, bakhaaro iyo dukaamo xirnaa oo ahaa meelihii ganacsiga ee ugu maciishada badnaa amaba suuqa ugu saxmiga badnaa ee ku yaala caasimadda Beirut ayaa dukaamadii waaweynaa ay dab qabadsiiyeen.
Waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal madaxweynaha dalkaasi Mareykanka mar uu hadlay ayaa waxa uu sheegay ama uu wacd ku maray in marka laga soo jeesto xaaladan adag ee dunida hadda ku jirta uu yiri China waanu ku marnay inaanu la xisaabtano ayuu yiri arrintan markay dhammaato. Waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal waxaa la soo daahiyey wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka fiidiyoo ay soo baahisay oo ah inay la arkay waxa loogu yeero UFO amaba waxyaabo hawada sare maraya kuwaasoo loo arkay nooleyaal kale oo ku nool